لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. kulankan oo ahaa mid loogu baroordiiqiyey sidoo kalena qur-aan loogu akhrinayay allaha u naxariistay daahir sheekh saciid oo ka mid ah culamaauddiinka soomaaliyeed sidoo kalena ahaa ganacsade kasoo jeeda degmada baraawe ayaa wuxuu ka dhacay magaalo london. allaha u naxariistay daahir sheekh saciid wuxuu ka mid ah shakhsiyaadka magaca iyo maamuuska ku lahaa wadanka kenya gaar ahaan magaalada mombasa. inta uu ku noolaa magaalada mombasa ee dalkaasi kenya ayaa daahir waxaa lagu xusuustaa inuu gacan weyn u fidiyey bulshada soomaaliyeed gaar ahaana bulshada kasoo jeeda degmada baraawe. haddaba kulankan ee iskugu yimaadeen jaaliyada soomaaliyeed ee kasoo jeeda degmada baraawe ee tacsi u direen ehelka iyo qaraabada oo ka geeriyooday marxuum daahir, waxaana halkaasi laga sheekeeyey taariikhda kooban ee marxuumka. sheekh daahir wuxuu ka dhisay magaalada mombasa masjidka ugu weyn ayuu ka dhisay. sheekh daahir sheekh saciid wuxuu sameeyey meel dadka soomaalida ay iskugu yimaadaan ay ku waraystaan ay ku seexdaan oo lacag ayuusan ahayn 10 sano ayuu siinayay. runta daahir wuxuu ahaa nin oo macriif ah, nin oo soomaalidoo dhan wax u qabtay. dagaalkii sukeeye soomaaliya ka dhacay waa u gurmaday, dhibaatada soomaaliyoo dhan bay saamaysay, dadku wax buu u qabtay. daahir sheekh saciid waa nin maaragtay wax u qabtay dadka qaxootiga soo qaxeen oo baraawo ka soo qaxeen. daahir sheekh saciid wuxuu ahaa nin caalami buu ahaa, nin reer baraawo leen ma ahayn. soomaaliya oo dhan gaal iyo muslim bini aadamku wuu adeegaaye, waxa waay khayrna wuu samaystay. aakhiradiisii ninka saaxiibul cibaado ah, aakhiradiisiina wuu ka shaqaystay. wuxuu dhisay madaaris fara badan, wuxuu caawin jiray orfanka ama yatiima ama loo yaqaano agoonta. ilaa hadda guryaha daahir sheekh saciid guryaal fara badan ayuu dadka dejiyey, ilaa hadda dad badan baa degan guryaashiisii. Tutamora mkono wa taazia ka ahli yetu na watu wetu wa Filila, wana wetu, jamaa zetu wote mahala wako ka kufa mzee wetu wote Sheikh Tahir Saciid. Tahir Sheikh Saciid waxaas ahay nin wanaagsan badan ma sha Allah. waqti qaxa dhacay xamar dadka reer baraawo dhan waxay ku ordeen Kenya. markii Kenya aadeen jaaliyada heer baraawo dhan aafuri meesha jaaliyada staji dadkiis dhan heer baraawada waqtiga dhibka dhan wax badan Tahir Sheekh Saciid sameeyay. anaka maanta anaka community oo reer baraawada wadankan joogan asaa khatimkiisa u sameeyay inaa u xasuusano dadkeena dhan inay ogaadaan qiimada Tahir Sheekh Saciid insha Allah. I feel Tahir Sheekh Saciid, Sheikh Omar ibn Sheikh Ahmed Sabiri was an icon, a hero and a leader of our community. When I had the news of his death, it filled me with great sadness because we have lost a great person from our community. Mina Zubeda لكن بسلامه وانتو انجو تعزيه مجيرنا مرحمه مزلويت وتاهر شيخ سعيد يا مناش نوانا وانت نوانا بينجنة شيكو أبكر كومونيتي يتو يا براوانيس يكون لندني يكو شنا فني ذهب مو اختمام مزلويتو مزلو ولكم من يحشمه حشمه لوانتو ناس بأنا لازم أشم حشمه وانتو شيكو لندني شكو شنا كوميزة تعزيه كوانا وانت واكو كل محل واكو. يا رب العالمين الأخبران يا سيد شمير إيكسر قصة تعزية ياك مجيتكم كميزة الدعاء يا شميريلو قرآن يا شميريلو مجيتو نفاني رب كميزة خبرينا فإذا خبرية وعسي إن شاء الله. مجيرو نمرهمو زرويتو زي شيخ طاهر سعيد مجير نمرهمو أميايتو أهليتو واركو الحمد لله. cha huzuni shirento ka chifo cha amia yitu mzee wetu Tahir Sheikh Saciid. mujitu ya rabbi na wapa sabri ahliye wonte khansa mkewe ya manasha na wanawe wonte na ahliye wonte insha Allah. taasi wuxuu soo walaagud Sheikh Tahir sameeyay runtii waxa halkan ku diray waxa weeye inaan ku mahad celino waxyaabo uu sameeyay. ilaahu waxaan ku codsanaynaa insha Allah taala qof asagoo kala inuu noo soo saaro in community-na ay isbahaysadaan isgacan qabtaan insha Allah. qof wanaaga ilaha noo soo saaro insha Allah. qof qaali ah weeye,
qof casiiza wey runtii oo naga tegey laakiin insha allahu tacaala mid kale ilaah noo keeno aamin ya rabbil caalamiin. cabdirashiid maxamed nuur cabdirashki, Universal TV, London.